gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sii jeeday gobolka Awdal ayaa isagoo warbaahinta Gabiley kula hadlay magaalada Gabiley u cadeeyay inuu ansixin doono gobolnimada Gabiley inta uu joogo golaha wakiilada Somaliland. baarlamaanku wuxuu leeyahay wixii xukuumaddu keento inuu ansixiyo marka xukuumadii kala dambeeyay dhawaaq bay sameeyeen laakiin golaha waxay keeneen oo qiimayna ma jirto golaha wakiiladu anigu magaciisa ku hadlay wuxuu diyaar u yahay gobolnimada Gabiley inuu ansixiyo maalinta ugu horeysa xukuumaddu keento hadii la keenay liba de wadanka qayb badan bay ka taagan tahay annaguna xisbi mucaaridaan nahay laakiin waxaan kaga dhawaaqayaa meel kale oo dira wal haysan ma marayna gobolka ilaa Sedel ilaa Awdal إن شاء الله وحكي كنا وان يهودي لو سوكو دندونا لكن تمام بويلو بيها هلك كذا واقعي هذا xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee xisbiga wadani oo isna carabka ku dhuftay inuu mooshinka ansixinta gobolnimada Gabiley horkeeni doonaan golaha wakiilada Somaliland ma xukuumadii ka taahday mooshin baan soo dhigaynaa aanu leenahay hal qiimeeyo xukuumaddu ha keento ha gudbiso عدي iyo gobolkii shuruuda ka baxayna ha soo gudbiso anaga والسلام عليكم رسابka gobolka Gabiley ayaa isaguna hore u sheegay inuu gudoomiyo Ciro hor joogo ansixinta gobolka Gabiley Gabiley in la ansixiyo madaxweyne waxa jirtay qolyo mucaarad islaamin ka baadaysta ay qodobkan aad u dul istaageen qolyaha waxa uu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha in maanta ansixintii gobolka ee hortaada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland waxa horeeyay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland إلى أسئلة وعلى أنك وضيع أعطي تعال كاتو كاتا بعدمكي عياري تطلع كبد حاجة عليه تعال وحنو قبل قبل المسؤولية حبوا حليني دوننا تعال تعينا هذا السياسة وأنوار كمان كعونا يعني madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa hore ololaha ugu galay inuu ansixin doono gobolnimada gobolka Gabiley hadii uu ku guuleysto doorashada madaxweynaha haddaba dadweynaha reer Gabiley ayaa ku dhaga barjoobay eedeymaha ay mas'uuliyiintu midba midka kale ku eedeynayo inuu hor joogo ansixinta gobolnimada Gabiley balse su'aasha isweydiinta leh ayaa ah sidee u arkaan dadweynaha reer Gabiley balamahan isburinaya ee ay soo jeedinayaan xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda talada dalka haysa anagu maqaalaa inuu saaqaarkan mari gudoomiyaha xisbiga wadani ana musharax wadani gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha waxa loo sheegay inuu ballan qaaday ansixinta gobolka Gabiley gudoomiyaha waxaan leenahay hore waxaan u maqalay xeerkii caasimadda oo haddii xeerka caasimadda la ansixiyo gobolka Gabiley halka banaanyaal ku yahay oo lagu soo 5 jeer lagu soo diray ajendaha shirka in dib loo dhigay oo saaca kaga dhacday waqtiga waxaan ku leenahay hadaba ballanqaadka gaashaantu dhab yahay shirka ugu horeeyay golaha wakiilada waxaan ku arki doonaa xeerkii caasimadda oo ajendahaas wan ka soo dhigtay waxaan leenahay sheego gobolka afka laga sheego oo la gobolkii waa horumarintiisa laga hadlayaa waxba loo qaban mayso laakiin waa intuu dhaba la arkaa adeegii dawladda weyn ma hayno tu gobol ma hayno degmadayadii baanu nahay afarta qof baa lagu saayidaa wixii aanu qabsan karaanu qabsananaa wax qabadkiisi magac waan haynaa gobolkii Gabiley magac waan haynaa laakiin magacaan wuxuusiisi iyo wax qabadkiisi ay dawladdu u ogoleen ya oo waxay qabanayeen oo san kastinay waa laga reebay miisaaniyadii maxaa ku leeyahay saduuq gobolka waxa loo xirto ma jirto marka waa atamu baan oo qiimeyn waa uu qiimeysay degmooyinka markii qiimeysay leeyihiin wuxuu leeyahay qiimeyntiisu leeyahay waxa uu xarsan ma jirto haddii kale waxa la madaxweyne waa maasan tahay madaxweyne hore si uu maasay
adiguna hata marsikar weeye waxba ku caamilo basata waxaan leenahay hor dawladda hore dhacayal baan ula jirtay lixda gobol iyo iyada u baan weyneeyay meesha gobolan ku haynaa runtii ma jiro gobolo degmada waa ka tagnikood ma la gaaray yaa oo xalayana haddii aan isku tashano oo gobolnimada iyo degmada yimaado oo aan waxaan ka maqan doonaa ilan min jihada tinada lama kala foteeyo marka waxa ku leeyahay ma jihada maanta Gabiley Siiraayo 5 sano dalka joogay waxay ka filayeen in la sameeyo istiraatiijiyadii gobolnimada gobolkii gobolnimo ku soo baxaana oo gobolnimadiisa qaato kii kalena uu iska daayo dadweynaha reer Gabiley imika gobolkii daahir bixiyo way hayaan Siiraayo balanqaadkii uu khayriida ka bixiyay inuu ansixiyo gobolkii uu baarlamaanka horgeeyna way tahay laakiin nasiib wanaag Siiraayo la tartamay maanta waxa la tartamay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland oo isagu maanta cod ku doonay Gabiley isaga Ilaahay ma galeysin doonaa xildhibaanada oo mooshin ku keena way keeni karayaan xildhibaanada la jooga wadani amba inta wadani ka taageersan xisbiga baarlamaanka dhexdiisa ku jirta waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case Som News TV magaalada Gabiley.